wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubai ayaa sheegay in la kala diri doonin hay'adaha dawladda Soomaaliya waqtigu uu ka dhamaaday waxa uu sheegay in dad ay adeegsanayaan dalal shisheeye ay dalbanayaan la kala diro xukuumadda iyo baarlamaanka waxaana uu sheegay in arrintan la aqbali karin waxaan ku soo gabagabeynayaa mahad badan shaqadu inay socoto dalkeenu wuxuu ku socdaa kabasho fiican dad baa raba inaynan kaban ama shisheeye ha ahaado ama gudaha ha ahaadee inaan la dhagaysanin institutionka dalkan ee dadka qaar banaanka laga soo tagaskareynaya leeyahay baarlamaanka ha la kala diro xukuumadda ha la kala diro dawladda ha la kala diro we will never accept that dalkan dawladdiisu way adkaatay horena way u soconaysaa waana guulaysanaynaa waxay noo muuqatay iftiinkii shalay wixii shabeellada hoose dhacay way arkayseen horeynu u soconaynaa waana guulaysanaynaa naftana hadalka wasiirka ayaa yimid iyadoo labadii maalin soo dhaafnay Muqdisho kulamo uga socdeen madaxda Soomaalida oo ku kala aragti duwanaa arrinta doorashada sidoo kale maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa hore u sheegay in laga fiirsado ay tahay awoodaha hay'adaha dawladda dhexe maadaama waqtigu uu ka dhamaaday shirkii Muqdisho shalay ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Roble iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa looga hadlay intii sii badneed in la xadido awoodaha hay'adaha dawladda sida fulinta iyo sharci dejinta inta doorashada socoto KNN